waxaa lagu wadaa in dalal badan ay dib u furaan masaajidda oo muddo u xirnaa tallaabooyinka xakamaynta cudurka coronavirus oo saameyn weyn ku yeeshay caalamka. Masjidada la furay waxaa ka mid ah kuwa barakaysan ee Makka, Madiina iyo Masjidka Al-Aqsa. Masjidka Al-Aqsa oo ka mid ah goobaha barakaysan ee muslimiinta, waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay masaajidada kale ee dib loo furay, sida ay ku warantay shabakadda Al Jazeera. Haddaba waxaan halkan ugu soo gudbinayaa muhiimadda uu leeyahay Masjidka Al-Aqsa iyo guud ahaan magaalada barakaysan ee Qudus. Muxuu muhiim u yahay Masjidka Al-Aqsa? Al-Aqsa waa magaca qaybta sare ee qalinka, wuxuuna masjidkani ku yaalaa dhul ka kooban 35 hektar. Muslimiintu waxa ay u yaqaanaan Masjidka Al-Xaram Al-Shariif, halka Yuhuuddana ay u garan og yihiin macbad. Waxaa sidoo kale hay'adda dhaqanka ee qaramada midoobay ee UNESCO ay u aqoonsatay goob dhaqan iyo hiddo leh oo muhiim u ah dunida. Goobta uu masjidkani ku yaalla ee magaalada Qudus waa meesha ugu muranka dheer caalamka tan iyo sanadkii 1967, xilligaas oo Israa'iil qabsatay bariga Qudus oo ay ka mid tahay qaybta qadiimiga ah ee magaalada. Balse khilaafka ka taagan goobta barakaysan ayaa muddo dheer soo jiitamayay, xitaa ka hor inta aan la aasaasin Israa'iil. Sanadkii 1947, qaramada midoobay ayaa soo saartay qaraar lagu kala goynayay Falastiin oo markaasi hoos imaanaysay gumeystihii Ingiriiska. Qorshahaas ayaa soo jeedinayay in Falastiin laba dal laga dhigo oo kala ah Israa'iil iyo Falastiin. Israa'iil ayaa la siiyey 55%, halka 45% soo hartayna la siiyey Falastiiniyiinta. Magaalada Qudus oo goobta uu ku yaalla masjidka barakaysan ee Al-Aqsa waxaa gacanta ku haysay beesha caalamka, waxaana maamulaysay qaramada midoobay. Waxaa maqaamkaas loo siiyey muhiimadda diimeed ee ay leedahay magaalada. Dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ayaa qarxay sanadkii 1948 kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday in ay dal yihiin, isla markaana ay qabsadeen 78% dhulkaasi. Intii hartayna oo kala ah daanta galbeed, bariga Qudus iyo Gaza waxay hoos imaanayeen Masar iyo Urdun. Israa'iil ayaa xoojisay boobka dhulkaasi sanadkii 1967 kadib dagaalkii labaad ee Carabta iyo Israa'iil, markaas oo isku fidisay bariga Qudus iyo weliba la wareegidda magaalada Qudus guud ahaanteed. Muddo sanado ah, Israa'iil waxa ay qaadaysay tallaabooyin ay gacanta ugu dhigayso qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus guud ahaan. Sanadkii 1980, Israa'iil waxa ay ansixisay sharci lagu qeexayay in magaalada Qudus ay tahay mid gebi ahaanteedba midaysan, ayna tahay caasimadda Israa'iil, taas oo ah mid jebinaysay sharciga caalamiga ah oo markii horeba ayaga ay xarxariiqdeen. Ilaa maanta ma jiro dal Israa'iil u aqoonsan inay Qudus leedahay, marka laga reebo Maraykanka oo Donald Trump uu u raray safaaradda dalkaasi. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Dadka Falastiiniyiinta ee ku nool magaalada Qudus oo ay tiradoodu gaaraysa 400,000 waxa ay leeyihiin xuquuq deganaansho ah, isla markaana looma aqoonsana inay muwaadiniin u dhashay dalkaasi yihiin. Tan iyo sanadkii 1967, Israa'iil waxa ay waday musaafiriinta dadka Falastiiniyiinta magaalada Qudus, waxayna ku haysay cadaadis. Israa'iil sidoo kale waxay Qudus ka dhistay dhismooyin ay qaramada midoobay ku tilmaamtay sharci darro oo ay ku nool yihiin 200,000 oo Yuhuud ah. Muhiimadda dhanka diinta ee dhismaha Al-Aqsa. Dadka muslimiinta ah waxay Masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus u yahay goob saddexaad ee barakaysan. Masjidka Al-Aqsa waxa uu ahaa qibladii koowaad ee muslimiinta ka hor inta aan laga dhigin masjidka barakaysan ee xaramka ee magaalada Makka. Qaabkan casriyeynta dhismaha oo qarnigii 7 la sameeyey, waxay muslimiinta rumaysan yihiin, aaminsan yihiin, yaqiinsan yihiinna in Baytul Maqdis uu yahay goobtii laga dheelmiyey Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Dadka Yuhuudda ayaa dhankooda aaminsan in dhismahani uu yahay goob mar macbadka Yuhuudda ahaa, balse sharciga Yuhuudda ayaa mamnuucaya in halkaasi la galo oo lagu cibaadaysto iyagoo u arka goob barakaysan oo aan la geli karin. Derbiga ku yaalla dhanka galbeed ee masjidka oo Yuhuuddu u yaqaanaan gidaarka baroorta ayaa la rumaysan yahay inuu yahay derbigii ka haray macbadka Yuhuudda, balse muslimiinta ayaa aaminsan in derbigaasi yahay gidaarkii daabadda Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku xirtay habeenkii dheelminta. Sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu madaxweyne Donald Trump sheegay in magaalada Qudus uu u aqoonsan yahay caasimadda Israa'iil, taas oo dalal badan oo muslimiin ah ka soo horjeesteen, carab weynna ka abuurtay caalamka islaamka iyo dunida muslimiinta. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. İsrail neresi? Acaba bu İsrail'in toprakları
nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? marxaladihii uu soo maray muranka sanadkii 1967 Urdun iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in hay'ad muslimiinta ka socota ay maamusho gudaha iyo dhismaha masjidka halka Israa'iil ay maamulayso ammaanka dibadda dhismaha masjidka barakaysan ee Al-Aqsa. Dadka aan muslimiinta ahayn ayaa loo ogol yahay inay goobtan booqdaan saacado gaar ah balse looma ogola inay halkaasi ku cibaadaystaan. balse ururada u ololeeya macbadyada Yuhuudda sida ururka Temple Mount Fountain iyo macadka The Temple Institute waxay cadaadis ku hayeen dowladda Israa'iil in ay dadka Yuhuudda u ogolaatay inay galaan gudaha dhismaha iyagoo doonayay in halkaasi macbad saddexaad laga dhiso. Sanadkii 2000 ra'iisul wasaarihii Israa'iil Ariel Sharon ayaa galay goob uu ku yaala masjidka barakaysan ee Al-Aqsa isagoo ay la socdeen 1000 askari oo booliska Israa'iil ka tirsan. in uu Sharon galay goobtaasi barakaysan waxaa ka dhashay kacdoonkii labaad oo ay ku dhinteen in ka badan 3,000 oo Falastiiniyiin ah iyo 1,000 Israa'iiliyiin ah. Israa'iil ayaa xanibaado kala duwan ku soo rogtay gelista masjidka barakaysan ee Al-Aqsa taas oo ka mid tahay gidaarkii sanadkii 2000 lagu kala gooyay halkaasi taasoo Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed ka hor istaagaysa inay dhismahani galaan. dadka Falastiiniyiinta ee ka badan 3 milyan ee ku nool daanta galbeed waxaa loo ogol yahay in dadka da'doodu ay ka weyn tahay 40 sano ay ku tukan karaan maalinka Jimcaha oo kaliya halka kuwa kale ay ku adkaanaysa inay fasax ka helaan maamulka Israa'iiliyiinta ee baalimiinta. daruufaha ku xeeran masjidka barakaysan ee Al-Aqsa waa goob yar oo ku taala gudaha Falastiin balse waa goob udhaxaad u ah muranka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil. inkastoo ay goobtani muhiimad weyn ugu fadhido muslimiinta haddana dadka Falastiiniyiinta ay haysta diinta Masiixiga waxay ka soo horjeesteen qabsashada Israa'iil. magaalada barakaysan ee Qudus ayaa ah goob sidoo kale muhiimad ay u arkaan dadka Yuhuudda iyagoo ku tilmaama inuu yahay macbad ay leeyihiin Israa'iiliyiinta.